war-saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay barnaamijyo beryahan socday oo ku saabsanaa dhismaha golaha deegaanka oo aada moodo in siyaabo badan oo kala duwan loo fasiray cid aan fahansanayn ha noqoto ama ha noqoto cid ma aragtay dan gaara ama siyaasad ay u geysay. marka waxaan rabaa inaan maqashiiyo ummadda reer Hirshabeelle hawsha xaqiiqdeeda sida ay tahay iyo xaaladdu meesha ay joogto iyo wax runta ah inaan ogeysiyo. ujeedada ugu badan waa intaas ayay tahay. waxaan rabaa ugu horreyntii in aan u sheego arrin beryahan dadka aada moodo in si loogu marin habaabiyey oo ah guddi xallin khilaafaad guddi la yiraahdo oo aan magacawnay. marka waxaan rabaa guddigaas in aan caddeeyo waxa uu yahay. guddigaas waxaa la yiraahdaa waa guddi la yiraahdo xallinta khilaafaadka oo loogu talagalay marka la dhisayo hadhowda golaha deegaanka oo ay isu yimaadaan dadka wada degmada ay wax qaybsanayaan hadhowda khilaafaadka dhexdooda ka dhasha dadkii la rabay in ay xalliyaan waayo. dadkaanu ma ahin dadka rasmiga ahaa golaha deegaanka ama xuli lahaa ama wax qaybsan lahaa ma aha. dadkaani waa guddi xallin khilaafaad oo la shaqeynaya wasaaradda. sida aada ogtihiin doorka shaqada cidda la rabo inay hogaamiso ay horkacdo waa wasaaradda arrimaha gudaha. iyaduna brosees sharciya oo la ogyaho oo la yaqaano ayay mareysaa. marka magacaabista guddigaanu waxay ka mid aheeday broseeskii wasaaradda laga rabay. marka waxaan rabaa inaan ogeysiyo u sheego ummadda reer Hirshabeelle khaasatan dadka ku nool ee degmada Jowhar guddigaanu ma ahin guddigii wax xulayay ama ergay wax xuli lahay ma ahan. guddigii wax qaybsiga oo wax qaybsan lahaa ma ahan. waa kaliya guddi farsamo oo aan ugu talagalnay in uu wasaaradda hadhow uu kaaliyo markii khilaaf yimaado oo khilaafkaas qaabka loo xalli lahaa oo wasaaradda kala taliyo. horta waxaan rabaa in sidaas loo ogaado. haddii ilaahay yiraahdo haddii la gaaro waqtigeeda oo broseska uu ku tago waxaa jiri doona odayaalka dadka wada degan ee degmada Jowhar ayagaa isu imaanaya, ayagaa wada hadlaya, ayagaa wax qaybsanaya. annagu waxaan u sheegaynaa oo kaliya in 27 xubnood oo degmada Jowhar ay leedahay in ay ayagu soo qaybsadaan. annagana ma khusayso yaa xubin ku leh yaan wax ku lahayn yaa meeshaan wax ka qaadanayo yaan qaadanayn. arrintaas waa arrin annagana khusaysa ma ahan. wasaaraddu shaqo kuma leh yaan dadka lagu jaha wareerinin. wasaaradda ciday rabtana qoraysa ciday rabtana iska dhaafayso ma jirto cid annagu aan qori karno. waxaan hadhowda dhex dhigaynaa odayaasha wada dega meesha tan iyo xildhibaanada ma aragtay ka soo jeeda degmada Jowhar. waxaan dhexda ka dhigaynaa 27 xubnood ayagaa meel la tegaya ayagaa qaybsanayo iyagaasay u kala badiyeen wax u kala qaadanayo. wixii marka ayagu ay qaybsadaan ka bacdi ayaan anaguna waxaan marsiinaynaa broseska caadiga ahaa oo sharciga ahaa. marka muhiimadda ugu weyn oo aan meesha ka lahaa horta waxay tahay waa intaas inay dadka u kala cadaato. waxaana u malaynaa in ay caddahay oo hadda la fahmi karo. intaas kadib waxaan rabaa dadyaabo beel ahaan loo kicinayo ama waxyaabo aan jirin loo sheegayo. waxaan rabaa ummadda inaan ogeysiiyo fara badana meesha ku jira. meesha waxaa ku jira siyaasi leh dan gaara oo ay dhibayso in arrintan ma aragtay golaha deegaanku marka ay dhisanto dadku wax fahmaan ilaa doorasho oo maaragtay qof la arkaba ay xor u tahay meesha ay ka timaado. xaqiiqatan ninka hadda maanta albaabadu u xirxiran yihiin oo maalinka sabcida anaa mitala dhahayo albaabka oona isku jaraya waa dhibaysaa. marka annaga uma dulqaada karno mana xayiraad inay noqotana ma rabno. nin dan gaara asagu leh oo diidan ummadda horumarkeeda in uu maaragtay dadka horjoogsadana aad iyo aad ay noo dhibee. waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaradda tan ee arrimaha gudaha waxay u xil saarantoo ugu horeysa waa golaha deegaanka. waxaad ogtihiin waddankan wuxuu ahaa jiray dowlad dhexe oo iyadu talisa oo iyada xakunka uu ka bilowdo oo iyada uu ku dhammaado. Soomaali markii dhibaato badan ay timid wixii waa la daadajiyo waa ogtihiin waxaa loo degay waxaa la federal hala sameeyo
federaalki waxaad aragteen oo ka soo baxay waa dowlad goboleedyada hadda dhisan oo ilaa 6 iyo qaarna ay sii dhiman yihiin oo gobolka banaadir uu maqan yahay kuma sinna marka xukunka lama rabo inuu ku ekaado oo kaliya haddii mar federaal uu yimid oo wixii ay daadegayaan waxaa loo baahan yahay inay degaan oo ay u degaan degmooyinka iyo tuulooyinka inay gaaro oo xukunka qof la arkaba meesha uu joogo oo talada wax uga yeesho maadaama laga yimiday xukunkii halka meel ahaa annaga marka mas-uuliyadana saaran waxay tahay ka wasaarad ahaan in aan xukunka daadejino oo aan gaarsiino ilaa heer degmo inaan gaarsiino heer tuulo inaan gaarsiino laanna degmada marka la dhisaayo dadku waxay ka imaanayaan tuulooyinka degmada waxay wax ku qaybsanaysa waa tuulooyinka iyo dadka maaragtay carrada degan marka anaga shaqadeena waxay tahay marka inaan xukunka daadejino oo ilaa hoos aan gaarsiino waana ku shaqaynaynaa balse waxaad ogaataan raali lagama ahan in xukunku daadego hoos aado ninka hadda maanta gacanta wax ugu jiraan shalay oday inta albaab ku xirtay dhahayo odagan kaliya asaga meesha ku ilaashado oo ku waardiinaya in dadka hoose wuxuu ay gaaraan raali kama ahan marka waxaan rabaa culeysyada noocaasa ee jira dadku in ay ka warqabaan waxaan rabaa meelo waxaa jirta maaragtay dhaliilo la igaga soo jeediyey oo maalan gobolka hiiraan beela jooga oo ma aragtay aada moodo si gaar ah in ay aniga ii dhaliileen beelahaas ma ogi waxa laygu dhaliila waxa ay yihiin meesha la yihahdo hiiraan ama beledweyne wax aan ka qabanay oo howla ma jiraan daahfuraa la sameeyey madaxweynaha hirshabeellaana aana daahfuray barnaamijkaas laakiin wasaaraddu waa hogaaminaysa wixii ka dambeeyey waxay ahaaday in dadka la wacyigeliyo oo loo sharxo in ma aragtay golaha deegaanku waxa ay yihiin iyo sida xaaladoodu ay tahay faa'iidada ku jirto waxa dadku ay ku dheefayaan waxaasay sharaxaad in dadka macalimiina meesha tagta oo dadka waxaas baraysa wax intaas ka badan oo anagu aan samayna ilaa iyo hadda ma jiraan daafurka habeenkii la sameeyey aniga maalinta subaxda ku xigta waa ka soo tegey ma ogi marka wixii laygu dhaliila waxaan marka rabaa in aan u sheego beelaha walaalaheeya ka mid ah dadka maaragtay hirshabeelle oo wasaaraddaanu ay wasaaradda u tahay ma jirto cid gaar ahoo la beegsanayo ma jirto cid xuquuqdeeda la diidayo ma jirto cid anugu aan ilo xuquuq ma leh iyo yaysan ka qaybgelin maba la gaarin barnaamijkaas la islama gaarin marka waxaan rabaa in la isdejiyo dadka siyaasadaha ka danta gaarka ah kale ee ummadda ka dhex shaqaynayo waxa ay wadaan inaan dadku aysan u dhegdhegin ee ay ogaadaan xaqiiqdu waxa ay tahay sida hadda aan jowhar ku sheegay ayaa beledweynena la mid tahay dadka wax dhisanaya waa dadka deegaanka jooga dadka wax qaybinaya waa odayaasha dadka maaragtay wax kala badsanaya ama ay ma aragtay daalac naazilinaya waa dadka meesha wada jooga ma ahan wasaaraddu waxay cid u meerinayso iyo waxay cid horkacaysa haba yaraatee ma jiraan wasaaraddu waxay ilaalinaysaa oo kaliya waa qoondada leedaha qoondada haweenka oo sharciyan ku qoran in wasaaraddu ilaaliso taasoo ma aragtay degmada lafteeda horumarkeeda iyo waxqabadkeeda ka mid noqon doonto markii arrintaas la ilaaliyo marka waxaan rabaa dadka nin waxle iyo nimaan wax lahayna isku dhex jira waxaan rabaa inaan taabto haddaysan meesha munaasib ku in raallia layga ahaan doonaa insha allahu tacaala hadda kahor waxaa jirtay gabar canug dhashay oo gabar yara ayaa islaam weyn oo maaragtay fidno socota ah ayaa waxay tiri canugan anaa dhala waa la qabsata bir loo kala bixiyaa la waayey nin nabiga markaas jooga wiil ou dhalay asaguna aakhirka nabi noqday laakiin markaas nabinimadiisa aan la ogeyn yaa wuxuu yihi aabba aniga mid halii dhiib arrintan anaa kala saaraya wiilkii arrinti loo dhiibay xagguu tegey markuu kala bixi waayo wuxuu yihi midi ha la ii keeno waa idin kala goynaa qofba qayb ha qaadatay qaab wax kaloon sameeya ma aqaaneen habartii waxay tiri noo kala goy ilaan ma dhalin ma ogta gabadhi waxay tiri maya hayga kala goynana iida sii intii la kala goyn lahaa iida hala siiyo nabigu wuxuu yihi islaanta waxaa tahay beenleyaa tahay gabadha anaa dhasha cunugaaga qaado barkii hadday dhasha ma aqbali lahayn in la kala gooyo ujeedadeedu marka waxa ay tahay cidda aan wax lahayn ee aan shaqo ku lahayn meeshaas ee rabta waxaa jira in ay baabi'iso ee doonaysa wax inay kala goyso waxaa la rabaa dadku inay ka digtoonaadaan iska ilaaliyaan waa hubaa shaki iiga ma jiro
dadka xaqa meesha ule oo deegaanka degan ma ogola in golo deegaan la hakiyo la joojiyo, qof aqbalaysa ma jirto. laakiin haddii adiga aada aragto qof dhehaysa lama ogola, lama dhisi karo, lama yeeli karo, ujeedo kalaa ku jirta. marka waxaan rabaa dadku inay ka digtoonaadaan. aada iyo aadaad u mahadsantihiin.